Tuugsada mar walba ka dawarsaday iridda hore ee madxafka qaranka mid ka mid ah dalalka Carbeed ayaa waxaa ku soo maray dalxiise ajnabi ah. Tuugsadihii ayaa yiri lillaah, dalxiisihii ayaa isna yiri maxaad kala jeedaa? Tuugsadihii ayaa mar kale yiri lillaah, dalxiisihii ayaa isna ku jawaabay mar kale maxaad kala jeedaa? Ugu dambeyn tuugsadihii wuxuu ka quustay in ninkan uu wax ka helo, balse dalxiisihii ayaa sawir xasuus ah ka qaatay dawarsadaha xilli dalxiisuhu ahaa nin aad hodan u ah. dalxiisihii ayaa aaday dalkiisa wuxuuna la xiriiray nin Carab ah oo saaxiibkiis ah kana shaqeeya jaamacad Mareykanka ku taala, wuxuuna weydiiyay macnaha lillaah. Saaxiibkiis ayaa ku yiri ninka kugu yiri kelmaddaas waa nin sabool ah oo doonaya lacag uu wax ku cuno. Dalxiisihii ayaa gashay naxariis, wuxuuna u diray tuugsadihii lacag dhan $1 milyan oo uu u soo mariyay safiirka tuugsadaha dalkiisa u fadhiyay Washington, wuxuuna boorsada lacagta ku dhijiyay sawirka tuugsadaha ee uu horey uga soo qaaday. $1 milyan ayaa soo gaartay safiirka, wuxuuna is yiri 1 milyan way ka badan tahay tuugsada faqiir ah, $200,000 way ku filan tahay kana badan tahay isaga iyo ehelkiisa. Wuxuuna ugu dhiibay ama ugu diray gudoomiyaha gobolka. Lacagtii $200,000 ahayd ayaa soo gaartay gudoomiyaha gobolka, isna wuxuu is yiri $200,000 oo shaxaad ah way ka badan tahay, 2,000 ayaa ku filan tuugsadahaas. Wuxuuna ugu dhiibay gudoomiyaha degmada. Gudoomiyaha degmada isna wuxuu is yiri $2,000 aad ayay uga badan tahay, $200 ayaa ku filan. Wuxuuna ugu dhiibay taliyaha booliska. Taliyaha booliska isna wuxuu is yiri $200 aad ayay uga badan tahay tuugsade, $20 ayaa ku filan quraac, qado iyo casho. Sarkaalkii booliska ahaa ayaa ugu yeeray askari kale uguna dhiibay $20 si uu ugu geeyo tuugsadaha madxafka hor fadhiya isagoo u raaciyay sawirkiisa. Ugu dambeyntii askarigii ayaa aaday tuugsadihii kuna yiri ma xasuusataa dalxiisihii kaa qaaday sawirkan ee aad ku tiri lillaah? Tuugsadihii ayaa ku jawaabay haa, balse nasiib xumo. Askarigii ayaa ku yiri tuugsadaha dalxiisihii wuxuu ii ka soo faray Ilaahay ayaa deeq baxsho. Calshaan askariga isna wuxuu la haray $20. Waa taas xaaladda dhabta ah ee mucaawinada, mashaariicda, deeqaha iyo wax kasta ee kale oo dadka saboolka ah loogu soo dhiibo mas'uuliyiinta iyadoo mid kasta qaybtiisa ka goosto. Ugu dambeynna qofka faqiirka ah lagu yiraahdo Ilaahay ayaa deeq baxsho iyo wax u dhigma.